بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah xaaladda colaadeed ee gobolka bariga dhexe ayaa caawa ka sii dartay iyadoo laga cabsi qabo Trump inuu amro duulaan ballaaran oo ka dhan ah Iiraan dhankeeda waxay shaacisay inay ku jirto diyaar garow xooggan oo dhinac walba ah isla markaasna ay tahay riya maalmeed wax la yiraahdo isdhiibid Israa'iil oo iyana sheegaysa inay gashay xaalad feejignaana isla markaasna filaysa weerar gantaalla oo uga yimaada Iiraan weerarada loo adeegsanayo cyberka ee lagu beegsanayo nidaamka biyaha ee waddanka Mareykanka ayaa sii kordhaya iyadoo la tuhunsan yahay Iiraan inay ka dambayso arrintan dagaalo culus ayaa lagu soo waramayaa inay ka qarxeen gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya laamaha ammaanka dalka Turkiga oo gacanta ku dhigay nin duuliye ah oo horay ciidanka uga mid ahaa oo isku dayay inuu kharajiyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay dagaalka dhanka robotka ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa cirka galay waxaana arrintan salka ay ku haysaa tiknoolajiyadda xoogaysanaysa ee Shiinaha oo soo bandhigay robot qalmarogad ciyaaraya dhammaan wararkan iyo weliba qodobo ku soo beer waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka intaan u gudbin xaaladda bariga dhexe oo caawa cirka ku shareeran isla markaasna la sheegayo xilligan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka inay hawada ku jiraan iyo madaxweynaha Mareykanka oo fariimahan jawaada soo gudbinaya waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka dhanka Itoobiya halkaasi oo wararka ka imaanaya ay sheegayaan dagaalo culus inay ka qarxeen waqooyiga dalkaasi gaar ahaan gobolka Tigreega iyadoo la sheegayo dagaaladan inay u dhaxeeyaan ciidamada dawladda federaalka iyo xoogaga jabhadda xoreynta shicibka Tigreega ee TPLF taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in dib loogu laabto dagaalkii gobolka TPLF ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada federaalku aroornimadii maanta weerar ay ku qaadeen deegaanka Shiraaro halka ku-xigeenka hoggaanka jabhadda Emmanuel Asefa uu sheegay in dagaaladu ay ka bilowdeen magaalada abaara 6 subaxnimo ee maanta isla markaasna dagaaladu ay socdeen maanta oo idil Asefa ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay adeegsadeen madaafiic culus isagoo xusay in dagaaladu ay ka socdaan galbeedka Tigreega oo ay maamulaan kooxo hubaysan oo ka soo jeeda gobolka Abxaarada warsaxaafadeed ay soo saartay TPLF ayaa waxay ku eedeysay dawladda federaalka inay muddo dheer ku kacaysay xadgudubyo kana shacabka Tigreega isla markaasna ay hadda u gudubtay weerar ballaaran oo lugta ah taas oo ay ku tilmaameen mid xaaladda colaadda sii xoojinaysa dhinaca kale dawladda Itoobiya wali kama aysan hadlin eedeymaha ka soo yeeraya jabhadda TPLF mana jiraan war rasmi ah oo laga soo saaray dagaalada ama qasaaraha ka dhashay dagaaladan ayaa imaanaya iyadoo bilihii la soo dhaafay ay labada dhinac isu eedeynayeen in ay isku diyaarinayaan dagaal cusub taasi oo sare u qaadaysa walaaca laga qabo in uu burburo heshiiskii nabadeed ee Pretoria ee lagu soo afjaray dagaalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray halkaasi oo 100,000 oo qof dagaaladaasi ay ku dhinteen ku dhaawacmeen kuna barakaceen waatahay wixii wara ee dagaaladan ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo iminkana dhanka Turkiga halkaasi oo lagu soo waramayo in gacanta lagu dhigay nin ciidamada ka mid ahaa oo la sheegay in isku dayay qaarajinta madaxweynaha Turkiga wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa maanta daboolka ka qaaday in la qabtay duuliye hore oo ciidamada ka tirsanaa kaasi oo lagu eedeeyay inuu ka qayb qaatay isku daygii lagu dili lahaa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan intii lagu jiray afgambigii fashilmay ee dhacay
15 bishii Juulaay sanadkii 2016 bayaan ay soo saartay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in ninka la qabtay oo magaciisa lagu soo koobay BK oo ahaa duuliye diyaaradaha qomaatiga u kaca isla markaasna uu ku jiray liiska cas ee dadka sida weyn loo baadigoobayo waxaa lagu eedeeyey inuu door ku lahaa weeraradii lagu beegsaday madaxweyne Erdogan xilli uu ku sugnaa magaalada Marmaris ciidamada la dagaalanka argagixisada ee gobolka Afyon Karahisar ayaa la sheegay in ay ku guuleysteen qabashada kadib howlgal lagu ogaaday goobtii uu ku dhuumanayay ninkaasi taasi oo soo afjartay baadigoob socday ku dhawaad 10 sano afgambigii fashilmay ee Juulaay 2016 ayaa sababay iska horimaadyo dhiig uu ku qabtay waxaana dowladda Turkiga ay ku eedeysay dhaqaaqa Hizamet iyo hogaamiyihii geeriyooday Fathullah Gulen inay ka dambeeyeen qorshaynta iyo fulinta afgambiga dowladda Turkiga ayaa sanad kasta u dabaaldegta 15 bisha Juulaay maalinta dimuqraadiyadda iyo midnimada qaranka iyadoo xustay 653 qof oo ku dhintay iska caabintii afgambigaasi markii la fashilinayay waa tahay warkaas inta aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa caawa xaaladda bariga dhexe oo cirka ku shareeran iyadoo lagu soo warramayo in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka hawada ay ku jiraan xilli kasta xabadda ayaa bilaaban karta Iiraan heegan bay gashay Israa'iil feejignaan bay ku jirtaa Trump wuxuu soo tuurayaa fariimahan jabaada waxaana eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladdan iyo warar hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay ha yeeshee aynu ku hakanno waa hagaag waxaan u gudbaynaa haatan xaaladda bariga dhexe caawa waa bariga dhexe xiisad colaadeed ayaa cirka ku shareeran walow wax kas isbedeli karaan oo Trump saacadda ugu dambaysa go'aan uu qaadan karo laakiin ifafaalaha muuqda waxa la leeyahay waxa suurtagal ah dagaal balaaran inuu dhaco dagaalkan Mareykanku waxay leeyihiin waxa la qorsheeyay ilaa 2 toddobaad in la wado laakiin Iiraan waxay soo saartay sidii aad kula socoteen barnaamijka wararka maanta goobaha ay beegsanayso haddii aadan daawan barnaamijkan markuu dhamaado dib u daawo waayo waxaynu soo taxnay soona gudbinay magacyada goobaha Iiraan ay beegsanayso gaar ahaan ceelasha shidaalka xarumaha sifaynta shidaalka iyo sidoo kale goobaha biyaha lagu sifeeyo Israa'iil qudheeda caawa heegan bay ku jirtaa Iiraanna waxay leedahay buuggeena maba ku jira waxa la yiraahdo isdhibitaan waan eegaynaa wararka ugu dambeeya murtan iyo kuwa hadda soo dhacay laakiin xagga Iiraan haddii aynu jaleecno madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka Iiraan Maxamed Riisa Cariif ayaa ku nuuxnuuxsaday in dowladda Iiraan ay diyaarinayso sahay ku filan 2 sanada soo socota inkastoo uusan faahfaahin noocyada sahayda la diyaarinayo balse waxa loo fasirtay Iiraan inay isu diyaarinayso dagaal muddo socda sidaasi waxaa baahisay wakaaladda wararka Faris ee Iiraan laga leeyahay Cariif ayaa farta ku fiiqay in ilaalinta xasiloonida bulshada ay weli tahay mudnaanta koowaad ee dowladda isagoo ku nuuxnuuxsaday in qorshayaasha dowladda ay ku jiraan diyaar garow lagu wajaho xaaladda ugu xun xitaa haddii ay dhacdo isla wararka Iiraan afayeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka waddanka Iiraan Ibrahim Rizai ayaa waxa uu sheegay in aragtida ah in Mareykanku uu ku qasbi karo inay isdhiibto taasi inay tahay mala awaal iyo riyo maalmeed wuxuu sheegay in haddii Iiraan la weeraro jawaab xooggan ay bixin doonto iyadoo beegsan doonta goobo muhiim ah oo ku yaala gobolka oo dhan iyo xarumaha muhiimka ah ee Mareykanka xagga Israa'iil telefishinka Kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa soo xigtay mas'uul Israa'iili ah oo sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu ku dhow yahay inuu amro weerar balaaran oo lagu qaado Iiraan mas'uulka ayaa waxa uu tibaaxay in xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Iiraan inay gaartay heerkii ugu sarreeyay isla markaasna xaaladdu qarka ay u saaran tahay inay qaraxdo waxaa sidoo kale uu sheegay in Mareykanku Israa'iil ku wargeliyay inuu u diri doono 10 dayuuradood oo dheeraad ah oo ah kuwa booyadaha ee shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka warbixinta ayaa waxay sheegaysaa in hay'adaha amniga Israa'iil ay isu diyaarinayaan suurtagalnimada in Iiraan ay bilowdo weerar culus iyo in Trump xitaa Israa'iil uu ka ogolaado inay ka qayb qaadato dagaalka oo sida hadalka loo dhigay dhinaca kale
telefishinka kanaal 13 ayaa waxa uu ka soo xigtay sarkaal Israa'iili ah oo sheegaya in la joogo saacad xasaasiya isla markaasna qiimeyntooda ay tahay in Trump ku dhow yahay inuu amro dagaal culus oo ka dhan ah Iran. waxaa sidoo kale la sheegay in labadii maalmood ee la soo dhaafay Mareykanka iyo Israa'iil ay yeesheen wadahadallo xooggan oo la xiriira xiisadda Iran iyo Mareykanka ka dhex aloosan. dhankiisa wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa isna waxa uu sheegay in ciidamadu ay sare u qaadeen heerkooda feejignaanta ilaa heerka ugu sarreeyana waa la gaarsiiyay caawa iyagoo isku diyaarinaya suurtagalnimada weerar Mareykanku oo ku qaado Iran. waa hagaag haddaba xaaladdu cirka ayay ku sheegan tahay intaynu barnaamijka ku jirno waxa dhici karta dagaalku inuu qorxo markaynu barnaamijka ka baxno waa dhici karta in xabaddu ay bilaabato waxaa kaloo suurtagala in wax isbedelaan oo meel un xaaladda laga dejiyo laakiin sida wax u muuqdaan xaaladdu waxa leeyahay cirka ayay ku sheegan tahay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump fariimo hanjabaad huwan ayuu hawada soo marinaya goor dhaweyto bartiisa bulshada internetka wuxuu soo dhigay sawirkan waana diyaarad nooceedu uu yahay F-22 waxba kuma soo qorin qoraal kale ma soo raacin diyaaradda un ayuu soo dhigay wuxuu kaloo soo dhigay isla bartan lacagta Iran oo dhulka gashay iyo doolarka ka sarreeya macnaha wuxuu leeyahay waan u dhameynaynaa lacagta Iran gebi ahaanba. arrinta marka waxa lagu macnaynayaa inay tahay dagaal maskaxeed. dad badan waxay leeyihiin Trump hadduu sidan u hanjabo waa la yaqaanaa dagaal ma qaadayo wuxuu rabaa Iiraaniinta inuu cagjugleeyo kadibna uu yiraahdo Pakistan baa isoo wacday ama Qatar baa isoo wacday dagaalka waa joojiyay Iiraan heshiis bay doonaysaa. waxaa la kala leeyahay arrintu sidaas ma ahane Trump wax kale u haray ma jirto dagaal inuu qaado iyo inuu dagaalkan uu yiraahdo waa joojiyay gebi ahaanba. marka waxa leeyahay wax kasta waa suurtagal dagaalku waa qarxi karaa ama waa joogsan karaa waxa imaan doonase lama oga. haddii aynu eegno xaaladaha kale ee soo kordhaya waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaq ciidan oo dhanka Iran laga dareemayo. sidoo kale waxaa leeyahay hawada sare waxaa ku jira diyaarado dagaal oo Mareykanku uu leeyahay kuwaasi oo isugu jira kuwa sahanka iyo diyaaradaha kale ee dagaalka weli laakiin xabaddu qush ma dhihin xaaladdu cirka ay ku sheeran tahay. Iran waxay wacad ku martay Israa'iil iyo wadamada ku yaala gobolka bariga dhexe inay ololi doonaan haddii dagaalkan lagu bilaabo waynu arki doonaa wixii ku soo korna. waa hagaag sheekada ugu dambaysa inoo soo socotee iminka waxaynu eegaynaa Mareykanka gudihiisa ayaa dhibaato culus waxay ka taagan tahay xarumaha biyaha ayaa waxaa lagu hayaa weerar dhanka internetka ah qaarkood waa la fariisiyey gobolka waxaa ka mid ah Minnesota oo Soomaalidu ay ku badan tahay. haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurtan wargeyska New York Times ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa waxa uu soo xigtay sarkaal Amerikaan ah oo sheegaya in baaxadda weerarada cyberka ee lagu beegsanayo nidaamyada biyaha ee Mareykanka ay ku fideen ugu yaraan 7 gobol iyadoo laga yaabo inay gaarto gobollo kale oo hor leh. saraakiisha ayaa waxay sheegeen inaan weli si rasmi ah loo xaqiijin karin in Iran ay ka dambayso weerarada dhanka internetka loo adeegsanayo maadaama baaritaanadu weli ay ku jiraan marxaladihii ugu horreeyay. waxaana taasi ay ku dareen in Iran ay kordhisay weerarada cyberka tan iyo markii Mareykanka iyo Israa'iil dagaal ay ku qaadeen Iran isla markaasna ay horay u beegsatay nidaamyada biyaha iyo kaabayaal muhiim ah oo ku yaala gudaha waddanka Mareykanka. waa tahay warbixintaasna intaa aynu kaga talowno haatan waxaynu u wareegaynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. aanaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. dagaal dhanka robotka ah ee waxa uu ka dhex aloosan yahay Mareykanka iyo Shiinaha. Shiinuhu mushkilad buu keenay dhawaan waxaa la soo bandhigay xitaa robodyo kala duwan oo aadan garanay inay dad yihiin inay robot yihiin. indhaha nuuxnuuxinaya afka nuuxnuuxinaya sida qof caadi oo kale ah. Mareykanku markaa hadda wuxuu bilaabay inuu ka mamnuuco waddankiisa in la keeno robodyadan Shiinuhu u wado. dabcan robodyada haddana waxay la wareegi doonaanba shaqooyinka caadiga ah haddii ay noqon lahayd warshadaha shirkadaha iyo goobo muhiim ah. hadda robotkan
qalmo rogodka ciyaaraya ee shiinuhu uu farsameeyey ayaa wuxuu ka mid yahay robodyada uu diidan yahay Maraykanku dalkiisa in la soo geliyo haddaad arkaysaan ninkan aad moodid inuu geel la joogo wahagaag dowladda Maraykanka ayaa waxay ku soo rogtay baa leeyahay xayiraad qaar ka mid ah robodyada casriga ah ee ay soo saaraan shirkadaha Shiinaha iyadoo Maraykanku ay sheegayaan inay ka walaacsan yihiin qatar dhanka amniga qaranka iyo suurtagalnimada in aaladahan loo adeegsado ururinta xog xasaasiya guddiga isgaarsiinta federaalka ee Maraykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo FCC ayaa waxa uu sheegayaa in robodyadan oo ku xiran internetka ay ururin karaan xog badan iyagoo adeegsanaya kaamirooyin makarafoonno qalabka GPS-ka iyo dareemayaal kale taasi oo sare u qaadaysa cabsi laga qabo in hawlo basaasinimo oo meelo fog laga maamulayo loo adeegsan karo go'aankan ayaa qayb waxa uu ka yahay tartanka tiknoolajiyadda ee sii xoogaysanaya u dhaxeeya Washington iyo Beijing kaas oo horeyba u saameeyay dhoofinta qalabka sameeya waxa loo yaqaan chipska iyo sidoo kale tiknoolajiyadda sirdoonka macmalka ama waxa loo yaqaan AI dhanka kale Shiinaha ayaa sii wada maalgelinta robodyada u eg bini'aadamka iyo kuwa afar lugood leh isagoo u arka warshadan mid istaraatiiji ah oo door weyn ka qaadan doonta mustaqbalka warshadaha adeegyada iyo sidoo kale xitaa daryeelka caafimaadka khubaro ayaa waxay aaminsan yihiin in robodyadan casriga ay noqon doonaan wejiga cusub ee tartanka tiknoolajiyadda iyo awoodda dhaqaale ee u dhaxeeya labadan quwadood ee imika dunida ugu horeeya Maraykanka marka afku gacanta saaray marka Shiinuhu waxay leeyihiin arrintan ma ahan arrin amni iyo qatar ma ahan bacdama horumar weyn aynu ka samaynay dhanka robotka ayaa Maraykanku wuxuu doonayaa inuu naxanibo Shiinaha laakiin waxay leeyihiin waa sii wadi doonaa farsamadan aynu ku guuleysanay waa tahay waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qobanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh